galmada ninka iyo xaaskiisa dhex barta kuma koobno oo kaliya inay si wadajir ah u raaxaystaan ubadna kala dhalaan, balse waxyaabo badan oo isu taga lamaanaha isqaba ay faa'iidooyin caafimaad ka heli karaan oo halkan lagu soo koobi karin ayaa jira, sida ka hortaga cudurrada wadnaha ku dhaca, ka hortaga xanuunka caadada, xoojinta murqaha, kaadihaysta iyo helidda hurdo wanaagsan. Waxaan muuqaalkan kusoo qaadanaynaa 7 faa'iido oo cilmi ahaan la xaqiijiyay in laga helo galmada xalaasha ah ee joogtada ah. 1. Xoojinta difaaca jirka isu taga. Lamaanaha isqaba waxay isbedel ku sameeyaan nafsiyaadka lamaanaha, waxayna sare u qaadaa difaaca jirka. Sidaa darteed waxaa la arkay inay badanaa dadka isqaba aysan ku badnayn xanuunada ka dhasha difaaca yarida sida hergabka iyo ifilada. 2. Hoos u dhiga miisaanka. Galmada oo si joogto loo sameeyo waxaa lagu tiriyaa inay tahay nooc jimicsiga ka mid ah iyo hab uu qofka miisaanka isaga dhimi karo, waayo xilliga galmada qofka dhididka ka imaanaya waa sabab u noqonaysa inuu dhalaaliyo xeerta buurnaanta, taas oo sabab u noqonaysa in qofka miisaankiisa hoos u dhaco, waxaana intaas sii dheer in uu xoojiyo qaar ka mid ah murqaha jirka. 3. Xoojinta murqaha kaadihaysta. Dad badan waxay ka sheegtaan xukun la'aanta kaadida iyo inay dhibto xijinteeda. Galmadu waxay jimicsi u tahay murqaha miskaha iyadoo xoojisa murqahaas, taasoo qofka ka caawinaysa inuu awood u yeesho xukumidda kaadida. 4. Ka hortagidda cudurrada wadnaha. Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in joogtaynta galmada ay sare u qaado caafimaadka wadnaha, islamarkaana ay ka hortagto wadne istaaga, caajiska dhiigana ay hoos u dhigto. Isudagga lamaanaha waxay caawisaa dheelitirka heer hormoonadan oo jirka ay ku yaraataa waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan oo caafimaad sida lafa beel iyo wadne xanuun. 5. Yareynta khatarta kansarka qanjirka ragga. Khuburada caafimaadku waxay sheegeen in galmada badan ay hoos u dhigto khatarta kansarka qanjirka manida ee ragga. 6. Wanaajinta hurdada. Markii aad galmo samayso islamarkaana aad biyo baxdo, wuxuu jirku soo daayaa hormoonka loo yaqaano prolactin, kaas oo mas-uul ka ah inaad dareento deganaan iyo raaxo, kadibna wuxuu kaa caawinayaa inaad hurdo fiican seexato. 7. Yaraynta isku buuqa maskaxda. Dadka galmada joogtada ah sameeya waxay dareemaan xasilooni, waxaana ku yar isku buuqa iyo welwelka, waxaana sii dheer in galmada joogtada ah ay kordhiso jacaylka ay isku qabaan lamaanaha iyo isxiisintooda.